kulanti wacan wanaagsan asxaabta meel walba joogtaan iyo si walba aad inoo daawanaysaan asxaabteeda ku xiran page-kayga iyo YouTube-ka waxaan leenahay mar kale kusoo dhawaada barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha ee maanta aanu kusoo qaadan doono kooxda Arsenal. Haddaba kooxda Arsenal guushii ay shalay ka gaartay iyo kulankii hore ee isbuucii hore la soo dhaafay ay kooxda Man United ka gaartay waxay taa kaga dhigan tahay in kooxdu ay tartan xoogan ee ugu jirto sidii ku hanan lahayd koobka Premier League ama horyaalka dalkaas Ingiriiska laga ciyaaro ee Premier League. Haddaba sidoo kale waxaad ku daawan doontaan Andre Berto waxa uu ku soo kordhiyay kooxda ma ciyaartoyda soo gaday oo wax tarmay u yeelan karaan kooxda dhaawaca soo gaaray Bukayo Saka iyo William Martin Odegaard muxuu ka bedeli karaa oo maadaama ay dhaawacyadu ay aad u farabateen isbuucan oo ay Martin Odegaard Bukayo Saka sidoo kale Odegaard Kai Havertz Gabriel Jesus aad bay wada dhaawaceen waa ilaa ciyaartooy shan gaaraysa Ben White waa dhamaantood waa wada dhaawac maxay ku soo kordhi karaa marka taa badelkeeda waxaan rabaa inaan barnaamijkeeda kala hadlo fadlan haddii aad ku cusub tahay barnaamijka follow inoo page-ka waa mahadsan tahay saaxiib haddii aad hore noola joogteen inoo sii share garay like iyo commentigana ka ilaawin fakirkaaga commentiga noogu reeb qaybta hoose commentiga ayaa fakirkaaga noogu reebi kartaa anaguna waxa muhiim inoo ah inaan aragno fakirkaaga oo aan kaga soo jawaabno wixii markaasi isbedela mahadsanidin aanu ku bilaabay dhaawaca soo gaaray Bukayo Saka waxa inta badan la xiriirinayaa in uu dhawaad ku maqnaan karo 3 bilood ilaa 2 bilood laakiin wili ma cadda oo jawaab cad lagama soo sheegin because sababtoo ah waxa uu dhaawac ka soo gaaray dhanka iyo muruqa ee cajirka waana halkii oo dhaawac hore kaga soo gaaray sida la sheegayo haddii uu halka dhaawacaas ka soo gaaro qalinka laga galiyay oo hor laga qalay oo 3 bilood ilaa 4 bilood oo ku maqnaa waxa laga yaabaa inuu sidoo kale inta la eg oo ku sii maqnaado waxaan laga yaabaa Bukayo Saka markii walba oo sidan u arki jirnay asigoo dhaawaca ama hintinaya laga bixinaya garoonka kulanka xigana line up ayuu yahay oo tuturaalo ay markaas ku noqonaya marka waan arki doonaa dhaawiciisii waxyaabaha ku soo kordha iyo sidoo kale Martin Odegaard laba ciyaartooy dhexdooda ayuu inuu maray ayaa la jiray garabka ayaa dhaawac ka gaaray waana wax iska aad oo iska fudud sida la dareemayo inta badan waxa laga yaabaa inuu isbuuc gudihiisa uu ku baksado laakiin waxaan idin sheegayaa inay wax dhibaato ah ay kooxda Arsenal ka soo gaari kareynin haddii ciyaartooydaasi ay wada maqan yihiin sababtoo ah booska Bukayo Saka waxa joogto 3 ciyaartooy oo innaba caadi aan ahayn sidoo kale waxa ka dhili kara ciyaaryahan Madueke waxa sidoo kale lagu bedeli karaa cunuga Ingiriiska Aisha la keenay isla markiiba penalty-ga lagu galay ama rigoorada lagu galay Max Downman waa cunug aad u daayar oo 15 jir ah waxa uu qabanayana imika waxa laga yaabaa 2 sano hadii uu sii joogo Bukayo Saka iyo Lamine Yamal biji la wada geliyo dhamaantood markaasi meesha hadda laga sheegayo Lamine laaciba Bukayo Saka comparing lagu sameeyo ama isku barbardhig lagu sameeyo maanta waxna ma leeyin doonaa cunugaas 2 sano hadda kadib hadii uu Premier League sii joogo inuu asigu markaasi lixle ku qabsan doono cunugana asigoo aad u daayar ayuu 15 kulankiisa ugu horeeyay 15 jir asigoo haddana waxa uu sameeyaa saameyn ka badan ciyaartooyda ku jirtay garoonka oo intaas oo sano dheelaysay ee Arsenal u dheelaysay sida Bukayo Saka oo kale sida Martinelli oo kale Trossard oo shalay joogay oo waxba qaban waayay ayaa waxa uu qabtay cunugaas 15 daqiiqo ama 20 daqiiqo oo ku jiray waxaan innaba caadi ahayn ay qaban karin inta ciyaartooyda garoonka ku jirtay marka cunugan aad u soo kacay hadal hayn fara badanna waa laga dhalinayaa Bukayo Saka marka booskiisa waxa la dhelsin karaa Madueke waxa la dhelsin karaa cunuga Max Down waxa la dhelsin karaa Inweri wax culeys oo markaas ku soo kordhi kara line-up-kaas ma jiro Odegaard booskiisa Eze ayaa dheelaya kulanka soo socda Liverpool ha maqnaado ama ha joogo Eze ayaa line-up taasina waxaan idin sheegayaa inay tahay mid kaliya ee markaas macalinkan uu soo gatay Odegaard waxa uu sameeyay waxay ahayd wax la yiraahdo kubadaha aragtidii waa ka dhimatay inuu fiirsho ciyaartooyda ay u furan tahay kubadda inay qaadan karaan ciyaartooyda u furan tahay inay gool dhalin karaan ma siiyo because wuxuu noqday xaasid shakhsiyadiisa kaliya inuu asigu ku ekeeyo inuu asiga le baroniga shoodo inuu asiga gadaal u soo celiyo kubadda hore u bixin karo hore u socodsiin karo inuu gadaal u soo celiyo waa waxyaabaha sababay in Odegaard
laga maarmi doono oo macalinkan uu soo gatay Eze ama ciyaartoy lamid ah sababtoo sanadkan markii uu dhaawac ka soo kacay sanadkii hore ee Realkii intuu dhamaadka ahaa wixii ka dambeeyay wuxuu noqday waa flop caadi ayuu noqday Ødegaard marka shalay dhowr kubadood ayuu sii karay Victor Gyökeres waana u diiday laba kubadood oo clear oo sii karay hadii uu baasiyo asigu Janis ku abuuri karaa ama gool ku dhali karay ama shot on target u noqon kartay ama hawada ba marsi shot of target baan noqotay laakiin waxa muhiimadu ay tahay waa sii kari wayn ciyaartooyda iminka u joogta Arsenal fiiro gaar ah ama aragti gaar ah ma lahan ciyaaryahanka ka dhilan number 9 ama no 9 Arsenal kuma dheeli jirin in muddo waxaad moodaaba inay ilaawsan yihiinba in no 9 oo meesha u joogo number 9 inuu meesha u joogo oo ay sugayo ciyaar in ayagu ay qoodiyaan oo kubadda xaggooda kaga yimaado ay sugayaan marka ciyaartooyda Arsenal inta badan baas ma siyaanayaan ma gaarsiinayaan kubadda qoodin ma lahan dhaxda kan ka ciyaara kan garbaha ka ciyaara uma suurad gelinayaan in xataa log ama jaf keenan xataa kuwa garbaha ka ciyaara kuwa dhaxda joogin trubas ama bas xatooyaa inay siiyaan xataa ama u xadaan way awoodi laayihiin marka aad u wanaagsantihiin asxaabteeda qiimaha ay qayaha mudan ninka la yiraahdo Andre Berto ayaa ka hadlaya Andre Berto waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamij gooni ah oo si kaliya kaga hadli doono laakiin Andre Berto kooxda markuu uu yimid waxa uu ka dhigay ciyaaryahan kasto ay Arsenal ay tiraahdo waa rabnaa inuu soo complete gareeyo ama dhameystiro eber waxay ahaa jirna waa rabnaa ay ahaa jirtay laakiin hadda wuxuu ka dhigay waa rabnaa waa la keenay waa la keenay hadda marka ciyaartooyda waxa laga yaabaa in Arsenal hadeertan ay u baahan tahay ciyaartooy ka ciyaara left back ama qadka center back oo ninka yiraahdo Kiguera laga yaabaa inay kooxda fasaxdo waxay marka raadinaysaa difaac dhexe bedeli kara ciyaaryahan Kiguero waan arki doonaa insha Allah hadii wixii ku soo kordho barnaamijyaadka ciyaaraha iyo waliba kulamada la ciyaari doona kulanka weyn ee isha lagu hayo waa haweenka Isniinta ah isna sidoo kale la dhili doono waa maxay farqiga u dhaxeeya Newcastle iyo waliba Liverpool hamiga kaga jiro Liverpool sanadkan inay koobka kaga guuleysato saadaal ilaa intee ah ayaa rajo ilaa intee laga leeyahay inay Newcastle ay markaasi kaga soo baxdo rajo intee la eg ayaa laga leeyahay in Liverpool mar kale ay koobka Premier League ay ku guuleysato Manchester United oo ayaduna boorkas ka soo jaftay oo ayaduna doonaysa inay markaasi jacjacaya laga dhihi waayay Liverpool oo breach ay ga dhigteen oo 20 baa isla noqonaya ana sanadkan ordayo lagu heeyay wax ku ceshanay taagan tahay ma awoodi kartaa kulanka ciyaarta ay soo bandhigtay kulanka Arsenal markii la dheelay Manchester United in Fulham soo bandhigi karto maanta waa su'aalo aad u fara badan kulay waxaad ku qaadan doontaa barnaamijkeena xiga wixii commentiga fikirkaaga ahna commentiga noogu reeb. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.